ciidamada AMISOM waxaa howlgal ay sameeyso ugu dambeysay 17kii bishii March sanadkii 2016. taliska AMISOM oo April 2016 shir ku qabtay xeerada Xalane ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu go'aamiyay in gabi ahaan la hakiyo howlgallada ay ciidamadooda ka wadaan gudaha Soomaaliya. 22kii bishii April sanadkan 2020 waxa uu taliska soo saaray amar ku wajahnaa saraakiisha kaasoo ahaa in loo diyaar garoobo qorshaha ciidamadooda looga saari lahaa difaacyada min gobol ilaa caasimadda. 13kii bishii June sanadkii 2016 dawladda oo dhibsanaysa dhagaraha isxigxigay ee ciidamada AMISOM ayaa ku dhawaaqday in la tayeen doono ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya si meesha looga saaro isku halaynta ciidamada AMISOM. 12kii bishii August sanadkii 2017 taliska ciidamada AMISOM oo ka duulaysa go'aanada ay dawladda federaalka uga maarmayso ayaa 4 booyad oo shidaal ah ku wareejisay Al-Shabaab qaab ah in dagaal looga qaatay kaasoo ka dhacay degmada Awdigle oo qiyaastii 70 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidoo kale ciidamada AMISOM oo doonaya inay fashiliyaan howlaha amni ee ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa 18kii bishii December sanadkii 2018 deegaanka Leego oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose geysay hub iyo saanad ciidan oo ku wajahnaa Al-Shabaab taasoo iyaduna u dhacday qaabkii hore ee shidaalka oo kale. taariikhyada kala ah March 7 sanadkii 2018 24 bishii March 2018 waxa ay ciidamada dawladda federaalka gacanta ku dhigeen hub shidaal iyo agab ciidan oo AMISOM ay u waday Al-Shabaab kadib markii lagu howlgalay macluumaad laga helay xubno ka tirsanaa sirdoonka qaranka. 22kii bishii July sanadkii 2019 taliska ciidamada AMISOM ayaa mar kale soo dalbaday in lagu daro howlgalka ay wadaan ciidamada dawladda hase yeeshee waxaa dalabkaasi ka biyadiiday dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii cabsi laga muujiyay in AMISOM ay dabar jibiso guulaha ciidamada qaranka iyadoo marar badan horay u dhacday sida Marka, Baraawe, Balcad iyo Ceelsiniin laakiin hadda xoog looga gaashantay. 28kii bishii December sanadkii 2019 taliska ciidamada AMISOM ayaa laga codsaday in hubkooda loo adeegsado howlgallada laakiin waa ay ka diiday taliska ciidamada xoogga dalka maadaama ay AMISOM halkii howlgal oo kaliya ay ku qaataan qarash dhan $520,000 waana sababta inta badan u doorbidaan in howlgallada aan la soo afjirin si dhaqaalahoodu oo u socdo. 11kii bishii April sanadkan 2020 dawladda federaalka ayaa go'aamisay in la xadido dhammaan socdaallada ciidamada iyo gaadiidka AMISOM si bulshada Soomaaliyeed loo tuso in amniga uu ku jiro gacanta qaranka oo ah kuwa kaliya ee maanta fuliya howlgal kasta iyadoo AMISOM ka barbar dagaalamayn awood buuxdana u yeeshay inay goob kasta gaaraan sidoo kalena ay qabsadaan.